كان دعرت مالك وشكاقا شوي قبيالة دين أفكو دابر جرو ورقياتو ترتين غيبو إيقابة داقين marka laga hadlayaa silsilad waa wax iska caadi ah kolka loo eego dhaqanka Soomaalida balse silsilada wardoon ayaa noqonaysa amaba noqotay aan iraahne mid caadiga ka baxsan haddaba maxay tahay sababta دولسكي سوعد كالي داعل كوما دقانا بدلا صوت رسادي سوما دابا قشا بدلا دوبو تقوالي سوما سيدورتا halkani waa channelka guusha nolosha one aniguna waa Cabdirasaaq Al-Cabdi fadlan subscribe saar gambaleelkana furo si aad ula socoto muuqaalada kan xiga جوبلان دولاني ما دابو ديريرو تكدها كسمايا كدقاقانتو دولة ذهبو على تكتامتمي kani waa Cali Bashiir Cabdi oo loo garan og yahay Cali Dhaanto waa fanaan Soomaaliyeed oo ku dhashay dawlad deegaanka Soomaalida ku qarson dusha lama dhaye dad isgaran sidii mawda dagna la ismadu siyemay sudeexana Cali Dhaanto qaybta labaad ee silsilada wardoon waxa uu ku soo bandhigay siro badan oo ay shacabka Soomaaliyeed badankood ka indhalaayeen waana sababta keentay in Cali Dhaanto loogu hanjabo xarig iyo dil labaduba hadallada Cali yiri ee saameynta weyn dhaliya ayaa waxa ay yihiin kolkii uu yiri يحداعي والي سوما سيدايدان وردرادا هرات سوما داهاوتا والي داريسكي سوما كالا دستان balse waxaa hadalkaasi ka jawaabay ama dhaantadaasi ka warceliyay fanaaniin kuwa oo igu cadcadaayeen Anwar Tooti iyo Muxudiin maxaa ay ka yiraahdeen ayagana tayaxani ragbu gudcurta ma la yahay dariska sheegaysana meel ka daran tagto waadiga dircada ayru daba fadhiya dayaxii dumay ee wali la sii daawanayay ee uu Cali ula jeeday kolkii ay falaqeeyeen abwaaniin fara badan Itoobiya maxay tahay sababta uu Anwar u difaacayo Itoobiya dibda dhamaalahiyo dufan baahago noocahago wadabayil xaga hagbadagu lasho oo laba aflu wadabeecad baas Anwar soo uma muuqda mid dafiraya amaba beeninaya hadalkii uu yiri Cali asaga oo aan waliba ku saleynaynin wax xaqiiqo ah haddaba maxay tahay sababta Anwar uu ugu hadlayo sidan amaba abwaanka u soo dhiibay erayada aan iraahne tayaxani ragbu gudcurta ma la yahay dariska sheegaysana meel ka daran tagto waadiga dircada ayru daba fadhiya balse su'aalaha dhowrka ah ee la isweydiinayo ayaa ah Cali waxa uu runta ka sheegay dhammaan geyiga ay Soomaalida degto maxay tahay sababta ay nabar gaar ah ugu noqotay maamulka dawlad deegaanka Soomaalida كوفر ديغاغو كيما لدالا دعدا دين افتوبا سو كل بدار مقوبا ما تدو حوالي سوما داد شديد وقوه يروب ماو كذا يدرع ضرورة عقون سيقو مودك طولو درف يدي ما كدوك سديد su'aasha labaad oo la iska weydiinayo arrinkan ayaa ah ma jirtaa in Cali loogu hanjabay dil yaase ugu hanjabay maamulka madaxweyne Mustafa Cagjar mase dayaxii dumay uu Cali ula jeeday dawladda Itoobiya halka su'aasha saddexaad ee la isweydiinayo ay tahay ayadana dawliska uu Cali sheegayo
in dacalka lala haysto dowlad deegaanka Soomaalida ma waxa uu ula jeedaa xukunka mase arrin quseeya xurnimada dowlad deegaanka Soomaalida dawliskii sawcid kale dacal kuma dhagana mid la soo tirsaday sawma daba gasha in la doobo tagwali sawma sii doorata haddaba su'aalahan la isweydiinayaa ay dhowrka haddii adigu aad jawaab u hayso fikirkaaga inagula soo wadaag qaybta hoose ee commentiga. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.